annagaa idinku yeedhnay annaga oo jecel in codkayagu gaadho dhammaan ummadda Somaliland dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba duruufaha maanta ka jira iyo geed socodka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda iyo go'aansitaagii Somaliland inaanu wax ka taataabanno annaguna halkan kuba soo koobi karin nuxurka u weyn ee maanta aanu jecelnahay inaanu wax ka taabanno annagoo ah xildhibaanadii golaha wakiilada qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxa weeye yeedhmo la isugu yeedhay labada gole labada aqal guurtida iyo wakiilada oo ku mudaysan 12 bisha tanaynu ku jiro waa maalinta axadda taasoo ajandaha la isugu yeedhay ay ku kooban tahay qaacidad xukuumadda Somaliland ay u ololeynayso ay leedahay waxaanu ka bixinay degmada Berbera magaalo madaxda gobolka Saaxil halkaas oo qaacidad laga bixiyay 70 kiiloomitir oo isku wareega haddaba su'aashu waxa weeye qaacidada halka laga bixiyay maxaa lagu bixiyay yay waxtar u leedahay maxay soo kordhinaysaa maanta Somaliland ma tahay dal la ictiraafsan yahay oo adduun weynuhu ictiraafsan yahay oo dalka la leeyahay qaacidad baa laga siinayaa Berbera ictiraafsan yahay oo laba dal oo siman oo is ixtiraamaya oo heshiis wada galaya arrintu ma tahay mise waxa weeye qaacidad la iska bixinayo waxa liyaala wax lagu iibsanayo oo maanta la taaban karo oo ummadda Somaliland ku qanci karto iyo waxay u soo ajiibaysaa midna aanay jirin hubaal waxa ah niman kale qaacidad baanu Berbera ka qaadanaynaa ogolaanshaheeda waxay ka soo qaateen xamar xukuumadda xamar joogta ayaa soo siisay su'aashu haddaba waxa weeye Somaliland gooni isu taageedii miyay ka noqotay ma qayb ka tirsan Soomaaliyadii hore ee 19 burburtay ee lagaga dhawaaqay Burco 18 May in Somaliland gaar isu taagtay rubuc qarnigaana loo halgamayay arrintii Somaliland miyay ka noqotay waa su'aal midda kale wax aliyaale wax loogu xisho oo waxaynu ku faani jiray nabadgelyadeennina maanta lagu khamaarayo oo taayir wareegaya oo dawladda ku dagaalamayaan mandaqada tan la dhex dhigay oo la leeyahay cid baynu la dagaalamayna dagaal aanaynu ku jirin waxna inoogama 15 haba yaraatee aanu inooga 15 ahayn waa wax la yaabo waxaan xusuusnahay 1945 World War II ayaa Mareykanku laba qumbuladood wuxuu ku riday laba magaalo oo Japan ah midna la yiraahdo Nagasaki midna la yiraahdo Hiroshima 300,000 qof ayaa ku dhintay embararkii Hirohito waa isdhiibay waxa qabsaday dawladdii Mareykanka ahaaba Japan qabsatay jasiiradda la yiraahdo Okinawa ayay waxay ka dhisteen qaacida xarbiya 75 sanadood ayay halka fadhiyaan 75 ka sanadood ummadda Japanku waxay ka qaylinaysay qaacidada wax ka dulqaada ilaa iminka khasab baa lagu haystaa waana iska furfuri kari laayihiin war waxa aynu ku iibsanayno ciidan ajnabi ah aynu ciideena u keenayno oo calan aan ahayn calanka jamhuuriyadda Somaliland Berbera looga taagayo oo qaacidad aanaynu xukumin layna dul keenayo waa maxay dhaqaale xitaa maanta waad ogtihiin Somaliland aad buu dhaqaalaheeda aad iyo aad buu jilicsan yahay على أقل تقدير هدي دقالة لجوه لي بورن وما أنت كبا ميزانية ديدا استدلك إيا انتحارك دقالة حمدا إن هيسا حكومة ما أنت تشوك تكلفته وحياب الله يسعر لها دقالة ما تشيرو اعتراف أي نكوي بسنينو وما أنت ضلك سود إيا إنه قاعدة الصين إنه اعتراف سنة ما تشيرتو بسم الله الرحمن ومدى Somaliland waxaan u sheegaynaa annagoo wakiil ka ah oo xildhibaanadii ay soo doorteen ah
qaacidada berbera laga bixinayo idinna waad ogtiin annana waanu ognahay inaanu idin dareensiino idin sheegno wax aliyaalo wax danoo inoogu jirta aan ahayn dagaal mandaqada ka socdo aynu ka qayb qaadanno inanay jirin waxaanu qaylo dheer idinku soo gaadhsiinaynaa xuquuqdiinna u kaca stand for your rights haddaanu annagu wakiil idinkaga ahayn oo idinku matalaynay annagoo xildhibaanada golaha wakiilada ka mid ah waanu ka soo horjeednaa waa diidannahay idinkuna inay idin istaagtaan xuquuqdiinna u kacdaan runta sheegtaan dareenkiinna muujisaan xukuumadda maanta u sheegtaan xaqiiqda dalka ka jirta waxay tahay in laysdhiibo maanta dawladda imaaraadku xoog inaguma qabsan sida Jabbaan qumbulada duriyaal inaguma ridin dad inagama dhiban caqligeenaynu qabnaa xor baynu nahay inaynu xuquuqdeena isu taagno xukuumadda Soomaaliland u sheegno in ilaahay xaqa ku soo dabaalo berbera maanta sabab qaacida looga bixiyo boqcad kale Soomaaliland qaacida looga bixiya meesha ma jirto ku dheeraan maayo waxaan ku soo koobayaa hadalkayga waa ka soo horjeednaa qaacidada berbera laga bixinayo waa diidannahay ummadda aanu wakiilka ka nahayna waa diidantahay waxaan hadalkayga ku soo koobayaa Soomaaliland midnimadeeda gooni istaageeda intaba iyo nabadgelyadeeda annagoo ixtiraamayna waxna maraya maaha xukuumadda waxaanu